qoriyayna dheerihiin qoryahaasna waa haysanaa ma fahanta maanta dalka shacabka waxa aan ku wadana waxa waaye wadanka dawladda ka jirta aan isdheeyna laakiin waxa ogaanay inaysan dawlad ka jirin nidaam ka jirin sharci ka jirin cadaalad ka jirin si ragii dadka geystay dhibaatadan geystay ee degmada Daynila ka soo afduurtay ee degmada Shangaani saldhig ku yaala ku shay si degdeg ah arrintaas loogu soo jawaabo haddii laga soo jawaabo in anaga jawaab adag ka bixinayno insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad u cambaareynayaa xarigii loo geystay gudoomiyaha dhalinyarada beesha mursade Shamso Daahir Guure iyo xarigii loo geystay walaasheena Farxiyo Daahir Shiine aadaan ugu xunnahay haddaan nahay dhalinyarada beesha waana ka xunnahay xariga iyo jirdilka iyo gumaadka iyo ishay handadaada loo geystay walaasheena Shamso iyo walaasheena Farxiyo waxaan dhihi lahaa dhalinyarada beesha mursade arintan aad ugu xun tahay dulmi annaga ma qaadana sideena horta dulmi ma qaadan annaga ilaa Itoobiya baarlamaanka Itoobiya ku jirnaa ma fahanta iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ma qaadana wax dulmi ah ma qaadana waayo maanta maxaa qasbay in dhalinyaradan ay badaha Algeria Spain iyo Libya ay ku dhamaadaan magafiyaal ay gacanta u galaan waxa sabab maxaa waay waa xafiisadii dawladda waxay ka dareemeen cadaalad darro musuqmaasuq iyo maanta marka walaasheena Shamso ayadoo xaq u taagan oo ka hadlayso dhibaatada loo geysanayo dadkeeda ka hadlayso weligeedba Shamso waxay ka hadli jirtay dhalinyarada la dulmiyay iyo beesheeda oo la dulmiyay weligeed intaas ka hadli jirtay marka maadaama marka ay saas tahay oo xaaladana ay halkaas ay taagan tahay dada inta Shamso watay ayadoo xaq u leh in lagu xiro saldhiga Daynila ayadoo xaq u leh in lagu xiro oo degmadii ay joogtana ay tahay degmada Daynila in haddana halkaas laga gudbiyo oo la geeyo degmada Shangaani saldhiga Shangaani in lagu xiro arintaas waxa way arin qalad ah way mana qabato aaway saldhiga Daynila aaway degmada Daynila waxa soo dhan waxa way qaab afduub ah way degmadana laga waday degmada Daynila laga kiciyay degmada Shangaani waxa loo geeyay saldhiga Shangaani waxa loo geeyay waxa way qaab afduub way halkan waa loogu imaanaa way dadkeedii iyo ehelkeedii ay halkan joogo way macna waxa loo geeyay saldhiga Shangaani loo geeyay waa intaas way marka waxaan dhihi lahaa madaxda dalka maanta joogto waxyaabaha ay ka shaqeynayso waxa way waxyaabo oo dhalinyarada ay sarraali ka noqonaynin oo halkan waa lagu kala tagayaa maanta waxay noo joogtaa halkan ay noo joogtaa adduunka dagaal sidiisa wuxuu ka bilowdaa gabar la dulmiyo ka bilowdaa walaasheena jirdilka ku yaalo wajigeeda suu ogyahay gacmeeda suu ogyahay wallahi waa la yaabaa waana arki doontaan waa la soo bandhigi doonaa annaga waxaan u baahannahay lawyer in noola qabto walaasheena si cadaalad ay u hesho annaga sideenaba saasaan u baahannahay ma ka gorgortamayna annaga waayo ragga xirtay rag waay annagana ragaannahay wax ay yihiin ma laha ayaga ma fahanta wax ayna dheer yihiinna ma laha qoriyayna dheer yihiin qoryahaasna waa haysanaa ma fahanta maanta dalka shacabka waxa aan ku wadana waxa waaye wadanka dawladda ka jirta aan isdheeyna laakiin waxa ogaanay inaysan dawlad ka jirin nidaam ka jirin sharci ka jirin cadaalad ka jirin marka waxaan dhihi lahaa maamulka maanta joogo hanaga soo garbaxaan walaasheen annaga way dilan tahay jirdil xooganaa loo geystay wejigeeda gacmaheeda garbaheeda dusheeda waxa ka muuqda daarta oo jirdil ah waa yaabaysaa waxaan dhihi lahaa dadka falkaas geystay way is yaqaaniin ma magacaaway aniga shakhsi uma magacaaway way is yaqaaniin way is og yihiin maalin aan maanta ahayna way ka sheekeyn doonaan wayna ka shallaan doonaan waxaan dhihi lahaa arrintan arrin mataqaanaa aan u dulqaadan karna ma aha arrinaa mataqaanaa ii sheeg oo aan ku farxayna ma aha walaasheenno waxa maanta lagu sameeyey berito waxaa la ushii walaalkaa ku dhacday adna waxa way kugu dhacaysaa maanta ushii Shamso ku dhacday annagana wayna sugaysaa war waxaan dhihi lahaa war nafta hal maray go'daa hal maraa la dhintaa maanta Shamso waxa lagu sameeyey annaga wayna sugayaan marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada beesha mursade walaasheenna Shamse hala soo garab istaago xaq waxay u leedahay maanta in la soo garab istaago waayo weligeed waxay u doodi jirtay waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada beesha iyo guud ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir ku sugan marka waxaan dhihi lahaa walaasheena Shamso dhibaatada loo geystay maanta arrin mataqaanaa laga fariisan karo arrin laga aamusi karo ma aha madaxda dalka oo ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu xigo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre iyo guud ahaan madaxda beesha mursade xildhibaanada wasiirada beesha mursade waa in arrintan si degdeg ah ugu soo hadlaan oo
waxa jirdilka loo geystay waa gabar waay gabar lagama kaftamo gabar sideedaba waxa waay dhibaatada loo geystay waxa waay beel dhanay mataqaanaa ii sheeg ay kicisaa waxaan dhihi lahaa arrintan arrin laga aamusi kara ma aha in xildhibaanada iyo wasiirada iyo guud ahaan siyaasiyiinta beesha mursade in ay ka soo hadlaan arrintan oo shamsana loo yar loo qabto si mataqaanaa dadkii dhibaatada u geystay cadaaladda loo horgeeyo marka waxaan dhihi lahaa arrintan arrin laga aamusi kara ma aha ma fahante marka shamso dadkii lala xiray waa la soo daayay shamso haddeerta garabkeena taagan tahay laakiin waxa ka muuqdo xarigeeda deesmadeeda in la dilay wallahi wax ma dhaanto ma fahante jirdil xoogana ka muuqdo marka waxaan dhihi lahaa arrintan in laga soo garbaxay u baahan tahay dadkii falkan geystay way is yaqaaniin annaga waxaan u baahannahay walaasheenna shamso si cadaalad ee u hesho oo xuquuqdeeda ee u hesho waxaan u baahannahay shamso in loo qabto loo yar loo qabto si raggii dhibkan geystay dhibaatadan geystay ee degmada daynayla ka soo afduurtay ee degmada shangaani saldhig ku yaalla ku xiray waxaan u baahannahay in walaasheenna cadaaladdeeda ay hesho oo xuquuqdeeda ay hesho si degdegna arrintaas loogu soo jawaabo haddii laga soo jawaabo annaga jawaab adag ka bixinayno insha allah